السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتم باختيارتنا داون ساي وحلا سو غاري امنتay ni soo gudbin jirnay wixii naga soo gaaray geeyga Soomaali dogtay iyo guud ahaan caalamka halka warkaasi toos ah inay imanayaan waa shashada muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. warka waxay soo tamin doona haduu rabraale ka hadaan oo Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaala qodobada wararka ugu door korona dad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in dawladdiisu la xisaabtami doonto ganacsatada. warbixin aan iga hayno dadkii ka badbaaday qaraxii bishii Agoosto ee sanadkii 2010 lagu weeraray madaxtooyada Soomaaliland iyo xarumo muhiim oo ku yaala magaalada Hargeysa. xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland oo sheegay in madaxweynaha Puntland uga digaya inuu maado deegaanada bariga gobolka Sanaag. xukuumadda Soomaaliland oo ka digtay duufaano ay sheegtay inay ku soo waajahayeen xeebaha bariga ee Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo si rasmi ah xadhiga uga jaray mashruuc korontada lagaga dhalanayo tamarta cadceedda oo ay ku baxday lacag gaadhaysa 20 milyan oo dollar. daawadayaal wararka kale intaanu baahinteena wareed ku jirna aad maqli doontaan ayaa waxa kamid ah maamulka Ehelsun oo war ka soo saaray weerarkii lagu qaaday ama lagu kharajiyay hogaamiyihii ururka Daesh. dawladda Turkiga oo u yeedhay safiirkeedii u fadhiyay Washington xilli hurguf siyaasadeed ay u dhaxayso labadaasi wadan. daawadayaal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada wararka ugu door korona hasaatin ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan.